dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ee magaalada madaxda labaad ee Somaliland ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskii xukuumadda Somaliland ay maalintii Isniintii kula gashay magaalada Dubai shirkadda caalamiga ee dekedaha ee DP World ee fadhigeedu yahay xarunta isku xirka ganacsiga adduunka ee Dubai oo xarumo ku leh 30 dal oo ku yaala guud ahaan qaaradaha dunida isla markaana sanad waliba maalgashi ku samaysa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka oo ay ku dhisto dekada cusub ama ay ballaarin iyo casriyeyn ku samayso kuwa hore u jiray oo ku yaala daafaha caalamka una badan dalalka soo koraya haddaba heshiiska ay xukuumadda Somaliland la saxeexatay shirkadda DP World ayaa mid ay bulshada reer Burco ku tilmaameen guul weyn oo dhanka horumarka shirkadda DP World ay la gashay Somaliland ee ku saabsan dib u habaynta iyo casriyeynta dekada Berbera aad baan u taageeraynaa waxaan u aragnaa inuu yahay barnaamij aad iyo aad ugu qiimo badan dhammaantii wadanka Somaliland cid kasta oo ka soo shaqeysayna waan ku hambalyeynaa waxaanu kala taageeraynaa wax alla wixii wadanka horumaray anigoo chief caaqil jaamac Ibrahim Xirsi waxaan halkan taageeraynaa shirkadda DP World dib u habaynta ku sameynaysa dekada Berbera waan soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa waxaanu taageeraynaa kale wax kasta oo horumar ah anigoo Cali Xasan Jaamac oo haysta carwada ma sha Allah jawleeri ugu taala magaalada Burco waxaanu taageeraynaa taageer mugiyo miisaan bale oo ku garab taaganay dawladda Somaliland heshiiskii la gashay shirkadda DP World aan uga mahadnaqayaa bahda TV Universal TV waxaan kaloo aan halkan mahadnaq uga soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumaddiisa waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda DP World mahadnaq uga soo jeedinayaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan ku dhiiriday go'aanka ah in shirkadda DP World ay timaado Berbera waa Maxamed Xasan Salebaan Doobeeye waa gudoomiyaha degmada Dhoqoshay taageero baan u muujinaynaa shirkadda heshiiska la gashay dekada Berbera inay ballaariso heshiiskii koobaad ee caalamiga ah ee Somaliland ay gashay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland ayaa saxeexay in la fuliyo mashruuca xukuumaddu markay soo dhigtay la qaatay waxaanu halkan si buuxda oo mug iyo miisaan loo taageeraynaa shirkadda DP World iyo Somaliland heshiiska ay galeen ee shalay ka dhacay Imaaraadka Carabta ee la soo kala saxeexday waxaan u aragnaa mid dalka iyo dadka faa'iido u leh mid aad iyo aad dadka shacabka reer Somaliland wax tar gaar ah u leh magacaygu waxa weeyaan Garaad Faarax Axmed Jaamac Geeli waxaanu soo dhaweynaynaa dekada Berbera wax ka qabadkeeda waanu soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay waxaanu aydisanahay oo taageersanahay go'aanka iyo heshiiska xukuumaddu ay la gashay shirkadda DP World anagu waxaanu qabnaa heshiiskaas inuu yahay heshiis horumarka ee Somaliland wax weyn ka taraya magacaygu Axmed Aadan Faarax Axmed Barako waxaan hambaliyo u dirayaa madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisa waxaan uga hambaliyeynayaa heshiiska ay la galeen shirkadda DP World oo ay kula galeen wax soo saarka iyo maxaan ku yiraahdaa maalgashiga wadanka halkan waxa ka hadlaya Mustafa Maxamed Diiriye Mustafa telefoon ilaahay baa mahadle halkan waxaan ka soo dhaweynayaa shirkadda DP World waxaan u arkaa mashaariicdii aynu u baahnayn iyo shirkadihii aynu u baahnayn horraantoodii baan u arkaa waxaan aad iyo aad halkan u taageeraynaa shirkadda wax ka qabadka dekada Berbera ay ku heshiiyeen Somaliland aad baan ugu qanacsanahay oo u hambalyeynaa qolada reer Berbera tala ahaan waxaanu siinaynaa manfacaad iyo magaceedaba idinka leh in aad iyo aad u taageertaan magacaygu waa Salmaan Maxamed Nuux halkan waxaan ka taageerayaa heshiiska dekada Berbera ballaarinteeda waxaan ku hambalyeynaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ومركي ugu horeysay xukuumadda Somaliland ay heshiis la gasho shirkad caalami ah waxaanay noqonaysaa shirkadaasi DP World waa shirkad had iyo jeer ku hawlan dib u dhiska dekadaha caalamiga ah Ali Daar Maxamed Boos TV caalamiga Universal Burco